Bismillahirrahmanirrahim. Casharkan waxaan ku baran doonaa baraboolaha oo aan online origin. Waayo hore originku oo la macnaheedu waa maxay vertixiskiisa halka bartaas xudunta ah. Laakiin hadda kuma sameeyay doona ay kala ku sameeyay doona ugu horeyn equation-kan wayba u horeysa sida awgeed midig ama bidix u jeesan doona qiimihii b-dana waa ka waa negative way sida awgeed marka kan bidix u jeesanaya graafkan highlight waa bidix. Ugu horeyn general formula soo qoro. General formula qaabkaas u qoran yahay waa marka originka aan online baraboolaha. Ugu horeyn b-dan raadinayna b-da qiimaheedu waa ka 4b waa inta la eegan leenahay. 4b haddii inta ay tahay marka b kaliya waxna waa dhinaca 4 u qeybi negative 2 la ekaanaysa. Qodobka xiga wuxuu yahay inaan vertixiska helno. Vertixku wuxuu yahay baraboolaha geeska kan xagee la dhigi doonaa. Waayo hore 0 0 waa la dhigi jiray laakiin hadda 0 0 lama dhigi doono. Coordinate kala loo baahan yahay. Sabab meesha la dhigi doono aad u fududahay. Qiimihii x ka waa kan, qiimihii y-gana waa maxay waa ka x y. Kan waxaan dhigi doonaa waa h, kan waxaan oran doonaa hadda waa k way. Idan h waxa la eg tahay 3 negative la socdo marka calaamadii waa bedelmaysaa negative 3 bay noqonaysaa. K-na waxa la eg tahay 2da waxaan leenahay marka calaamadii waa bedelmaysaa iyadana negative ku dhufo 2. Haddii marka aad ku wareegto x qiimihiisa waa kan, y qiimihiisana waa kan. Calaamadaha uu kala bad way hadda vertixki waa helnay bartaan dhigi lahayn baraboolaha waa meesha x-na ay 3 negative 3 ka tahay y-na ay positive 2 ka tahay waa halka meesha ay ku kulmaan marka halka ayaa inoo ah vertixki way marka kan vertixka maxaa noogu xigaya marka focuska see ku helaysaa marka focuska waxaan sameeynaa mar walba xudunta la durkaa waxaan laga durkaa in la eg qiimaha b qiimaheedu waa 2 laba ka durug laba xagee u durkaa marka waxa u durkaysaa dhinaca bidixda ah sababtoo ah graafkan wuxuu u jeesan doonaa niri bidix laba durug marka hadda saddex taagneed oo aan laba sii durugta maxaa dhacay 5 baa tagaysaa negative 5 way haddaan ka helnay marka hadda waxaan helaynaa waa maxay raadinaynaa directrixka waa cagsi bidix maadaama hadda aan laba u soconay hadda midig laba u soo durug laba xagga u soo durug negative 3 taagneed soo durug 2 laba negative 1 baa imaanayna wakan halkaas ku sameeyay directrixka markan vertical buu noqonayaa x-tiisuna waa maxay negative 1 bay egtaa marka waxaan noogu xigay marka balac kala ekaanaya balac wuxuu noqon doonaa b maadaama 2 ay tahay laba ku dhufo waa laba laab buu noqonayaa laba b waa 4 dhinac walba 4 u durug kor 4 u durug hoosna 4 u durug korkan 4 u durkay marka maxay noqonaysaa 2 baan taagnaa 4 haddaan ku daro xagee tagayaa 6 ba tagaysaa waaka 4 ku sii darso 6 halkana 4 soo durug haddaan 2 taagnaa hoos 4 u durka maxay noqonaysaa waa 1 0 negative 1 negative 2 ma imaanaya soo soco negative 2 imaanaysaa kadibna isku xir graafkeennana waa maxay wuxuu u jeesan doonaa dhinaca bidix buu u jeesan doonaa example labaad waxaan la siiyay equation sidii standardka ah ee generalka ah uma qorna sidee u gelinaa marka soo qaado kadib waxaan sameeynaa horta laba qayb oo kala qaad wixii x halka isu raacay 8y plus 1 dhinaca kan ma wareejinayna kala wareeji marka negative 1 iyo negative 8 bay noqdeen maxaa yeelay calaamadda isbedelaysa goorta shayga equalka dhinac laga mariyo hadda waxaan adeegsanaynaa marka complete square wixii la oran jiray complete square wax kale ma aha qiimaha termkaas ama tibixdaas laba u qeybi laba jibaar kadib 6 labadooda maxay noqonaysaa 3 laba jibaaray waa 3 square waa 3 square dhinac walba ku dar marka waakan qaybta tan 3 square baan ku darnay qaybta tan 3 square baa lagu daray hadda waxaan sameeynaa marka factorizing factoring maxaa ku sameynaysaa waxaan raadinaa laba lambar goorta la isku dhufto 9 keena maxaa kana 9 laba lambar goorta la isku dhufto 9 keena goorta la isku darana 6 keena waa 3 iyo 3 way wanaqana sida ogeed marka halka wax noqonaysa x plus 3 square labadan way kala go'ayaan positive 8 baa halka ku soo haraya kadib waxaan sameynaysaa 8 dibadda u saar negative 8 aan dibadda u saarnaa negative 8 dibadda u saar negative 8 baa ka saarto qaybtan way ba ku soo haraysa qaybtuna maxay 8 negative 8 u qeyb negative 1 ba ku soo haraya hadda waxaan aragnaa marka general formulihii ama standard bay u qoran tahay hadda kadib waxaan sameeynaa hadda sidii processka aan mari jirnay aan maraynaa way tan waa equation keeni weeye waxaan sameeynaa marka ugu horeyn b-da raadi b-da qiimaheeda waan qaadnaa negative 8 kaas leeyahay 4b waxa ay tahay negative 8 waxaan leenahay marka 4b waxa ay tahay negative 8 u qeyb dhinaca walba 4
waxay noqonaysaa marka negative 2 ina ilaawin waa x marka kan x maadaama ay tahay waa kor ama waa hoos qiimihii waa maxay negative buu noqday b-da sidaa ogeed graafkana hoos buu jeesan doonaa waayo vertixiska aan raadina marka kan vertixiska maxaa niri qiimihii x waa kan qiimihii y-gana waa maxay waa ka u fiirso marka waa halkan xagee dhigi doonaa way 0 0 lama dhigi doono sababtoo originka waa maxay ma yaal oo noqonaya marka h waxa la egtaa 3 calaamada isbedelaysa maxaa la negative h way negative 3 bay noqonaysaa k-na waa maxay sidoo kale iyadana 1 bay la egtahay negative iyo negative isku dhufo positive 1 vertixiskana marka wuxuu noqon doonaa meesha x-na ay negative 3 ka tahay y-na ay ka tahay 1 halkee waa bartaa way bartaa ayaa noo ah marka vertixiski waa noo ah waxaa noogu xigaya marka kan waxaa noogu xigaya focuska maxaan sameynaa marka focuska waxaa sameynaysaa laba kasoo durug xagee u durkaya maxaa niri garaafka hoos buu jeesanaya soo maaha maadaama garaafka hoos u jeesanayo laba hoos u durug marka xagee taagnayd 1 baa taagnayd u fiirso 1 baa taagnayd laba soo durug marka 1 halka soo durug waa 0 halkana ka durug waa negative 1 waaye waayo halka ayaa ku sameysmay marka focus haddaa heshay waxaan heli karnaa directrixka maxaan sameynaa marka soo hoos laba uma durkin kor baan u durkaya marka 1 haddaa taagnayd oo laba kor u durugto noqonaysaa 1 laba ku dar waa 3 bay noqonaysaa waa ka bartaa waxaa ku sameysmay marka directrixka wuxuu noqon doonaa mid jiifa horizontal ah x-na y-na halka waxay ka tahay 3 bay ka tahay marka kan waxaan sameynaa marka balaca inaan ogaano rabnaa balaca si aad u ogaato b-da qiimaheedu waa 2 soo maaha laba laab marka laba ku dhufo waa 4 xaggan 4 u durug halkan waa maxay 4 u durug haddaan 3 taagnaa oo 4 durko 3 4 ku dar maxay noqonaysaa 7 ilaa negative 7 halkan waa maxay waxaan soo durkayaa 4 maxay noqonaysaa marka eegno waa 1 2 3 4 1kaas aan imaanaya kadibna intaa isku xir garaafkeena waa maxay hoos buu jeesan doonaa waa example-kan saddexaadna aan isla eegno marka equation iyo waxba lama siin waxaana la siiyey focuskii iyo waxaana la siiyey waa maxay focusku wuxuu noo sheegay mar walba dhinaca u jeesan doona garaafkeena iyo directrixkii waxaan sameynaa marka horta focuskii aan sawirno focuska wuxuu noqonayaa meesha x6 ka tahay y-na waa maxay 3 ka tahay labadaba meesha ay ku kulmaan buu focus ku dhacaa weynaneeda waa bartaas way directrixkana xagee dhacaa meesha x ay ka tahay 2 x xagee bay 2 ka tahay waa halka bartaa way halka ayaa dhacaa marka directrixka way marka kan waxaan rabnaa marka inaan ogaano vertixiski xagee dhacaya vertixiska waxaan naqaanay in isla eg buu u jiri jiray focuska iyo directrixka marka bartamahoodu dhacaya vertixiska 6 iyo 2 bartamaha maxay noqonaysaa marka waa midpointiga 6 2 ku dar waa imse waa 8 8 2 u qayb waa 4 halka way marka labadaas ku dar 2 u qayb focuska iyo waxaan isku daraya directrixka 2 u qaybinaya waa 4 bartaas u dhacay marka directrixkeena meesha way 3 y wuxuu ka yahay 3 x-na muxuu ka noqonayaa waa nili 4 buu ka noqonayaa halka waxaa noo dhacay marka focuski way b baan rabnaa marka inaan ogaano b qiimaheedu wuxuu yahay hadda hor waxaan soo baranay focuska intee buu ka fog yahay vertixiska wuxuu ka fog yahay in la eg b way intee ka fog yahay marka hadda 4 buu taagnaa 6 buu kana taagan yahay focuska intee isu jiraan 6 4 ka tar 2 iyada waxay noqonaysaa marka intaa qiimaheeda oo ah 2 marka b-da qiimaheeda haddii 2 ay noqotay marka waxaan ogaan karnaa balac uu noqon doona garaafkeena 2 ku dhufo waa 4 kor 4 u durug hoosna 4 u durug kor haddaan 4 u durug maxay noqonaysaa waxaan taagnaa 3 4 ku dar waa 7 way waxaan taagnaa 3 waxaan ku darayaa maxay 4 hoos soo deg waxay noqonaysaa marka negative 1 garaafkii isku soo xirmay pointiga kaas u jeesanayaa hada wabillahi التوفيق